dalkeena Soomaaliya waxa uu leeyahay badda ugu dheer Afrika, taasoo in ka badan 3,300 oo kiiloomitir ku fidaysa badweynta Hindiya ilaa gacanka Cadmeed. Ma ogtahay ayadoo kalluumaysatadeenna ay ku dhibban yihiin agab yari, doomo qadiimi ah, iyo weliba suuq la'aan, in haddana ay jiraan dalal shisheeye oo boqolaal milyan oo dollar sanad walba ka sameeya kalluunka baddeena. Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay sida dalalka Shiinaha, Isbayn, South Korea iyo dalal kale ay dhaqaale uga sameeyaan baddeena, halka dadkeenuna ka baahan yahay. Badda Soomaaliya waxa ay qani ku tahay noocyada kalluunka ee aadka loogu jecel yahay sida argoosatada, kalluunka loo yaqaano tuunaha, shirimbiga, iyo kuwo kale oo badan. Waxaa lagu qiyaasaa in kalluunka ku jira baddeena uu dalkeena ka faa'iidi karo sanadkii dhaqaale ka badan 300 oo milyan oo dollar, sida laga soo xigtay warbixin uu soo saaray ururka Secure Fishing ee fadhigiisu yahay Mareykanka sanadii 2015. balse halkii aan ka dhoofin lahayn kalluunkaasi qiimaha badan oo aan ka samaysan lahayn suuq kalluun oo xoog leh, dalkeenna waxaa loo soo dhoofiyaa kalluun lagu soo warshadeeyay dibadda, halka tiro yar oo ganacsato Soomaaliyeed ay dibadda u iibgeeyaan kalluunka. Dalkeennu wuxuu khasaaraa sanad kasta lacag dhan 306 milyan oo dollar oo ah dhaqaale ay dalal shisheeye sifo sharci darro iyo musuqmaasuq isugu jirta uga sameeyaan ka kalluumaysiga badaheena, sida lagu sheegay warbixin uu daawacay ururka Earth Future Foundation sanadii 2020. Maraakiibta shisheeye ee jariifka ah ayaa caadiyan xilliyada habeenkii ah ka shaqaysta badaha dalkeena ayaga oo aan wax rusqada haysan, halka qaarkoodna ay lacaga aad u yar ay qaab musuq ah ku siiyaan madax Soomaaliyeed, kadibna waxay urursadaan kalluunka badaheena ku jira. Sida laga soo xigtay warbixin uu soo saaray ururka caalamiga ee Global Fishing Watch, dalal ay ka mid yihiin Isbayn, Shiinaha, Iiraan iyo Thailand ayaa ka faa'iida biyaha Soomaaliya, ayadoo kalluumaysatadii Soomaaliyeed ee xeebaha ka daawanayaan ayagoo rajo beel ah. Kalluunka laga soo qabto badaha Soomaaliya ayaa loo dhoofiyaa, laguna warshadeeyaa, loona iibgeeyaa suuqyada Yurub iyo Aasiya si faa'iidooyin baaxad leh looga sameeyo. Tusaale, dalka Isbayn wuxuu taageero uga helaa ganacsigooda kalluunka Midowga Yurub, kadibna wuxuu kalluunka uu ka keeno geeska Afrika sida Soomaaliya dib uga iibiyaa suuqyada caalamka. Soomaaliya ma lahan takado caalami ah, warshado kalluun, iyo nidaamka kaydka kalluunka. Xaaladahan ayaa dalkeena ka dhigay mid dhaqaalihiisa hooseeyo, halka kalluumaysatadii Soomaaliyeed aysan wax ku filan ka helin kalluumaysiga. Dhalinyaradii ku nooleed xeebaha ayaa magaalooyinka shaqo u raadsanaya, halka qaarkoodna ay galaan safarro tahriiba oo halis badan si ay u helaan fursado ay noloshooda iyo tan qoyskooda ku maareeyaan. Dad badan ayaa qaba si dhaqaalaha kheyraadkeena uu gacanteena dib ugu soo laabto inay lagama maarmaan tahay in 4 meelood la maalgeliyo. Qodobka koowaad, in la helo ciidamo xooggan oo ilaaliya badaheena. Qodobka labaad, habdhismeed kalluumaysi oo casri ah sida doomaha, kaydka iyo warshadaynta. Qodobka saddexaad, heshiisyo kalluumaysi oo ku dhisan cadaalad iyo hufnaan. Qodobka afaraad, in la taageero kalluumaysatada Soomaaliyeed iyo shirkadaha, tababarna la siiyo dhalinyarada. Haddii lala yimaado aragti fog iyo ilaalo dhab ah, kheyraadka baddeenu wuxuu quudin karaa dadkeena, wuxuuna sare u qaadi karaa dhaqaalaheena, islamarkaana abuuri karaa mustaqbal wanaagsan. Waxaana la gudboon inaynan daawadayaal ka noqon dhaqaalaheennii oo ka shiraacanaya xeebaha dalkeena. Waxaa la joogaa waqtigii ay Soomaaliya kheyraadka baddeeda ka faa'iidaysan lahayd oo cadowga xeebaheena xaalufinaya aan ku baraarugi lahayn. Fadlan nagu soo biir haddii aad aaminsan tahay in kheyraadka Soomaaliya ay mudan yihiin in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan. Muuqaalkana sheer garee si ay dadkeena u baraarugaan, caalamkuna u ogaado.